shacbiga ku nool magaalada Boorame xarunta gobolka Awdal ayaa si weyn u soo dhaweeyay wasiirka cusub ee wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Somaliland oo madaxweyne Biixi 14 bishii November aynu ku jirno uu magacaabay mudane Cabdinaasir Maxamed Xasan Booni oo ahaa afhayeenka xisbiga talada haya ee kulmiye. Shacbigu waxay madaxweyne Biixi uga mahad celiyeen xulashada uu wasiir Booni u xushay inuu ka mid noqdo golihiisa wasiirada, waxaana hadaladoodu ay u dhignaayeen sidan. waxaa halkan u soo istaagnay inaannu halkan hambaliyo iyo bogaadin hawada u marino magacaabista uu magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu magacaabay wasiir kartile oo dhalinyaro Cabdinaasir Booni ahna ahaa afhayeenka xisbiga talada haya ee kulmiye. runtii waa nin kartile mas'uuliyadana ka soo bixi kara guud ahaan gobolka Awdal. shicibka reer Awdalna ay waxa weeyaan aad iyo aad u soo dhaweynayaan madaxweynaha. waxaanu ka codsanaynaa dhalinta gobolka ka soo jeeda ee aadka u firfircoon ee Cabdinaasir Booni hormoodka u yahay inuu sidaas oo kale mar kasta u magacaabo. madaxweynaha waan ugu mahadnaqaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba. runtii Cabdinaasir waa nin shakhsiyan aan aqaano karti iyo waayo-aragnimo aan ku tuhmayo wax badanna ummaddan u soo kordhin doona. waa ku mahadsan yahay madaxweynuhu, adigana mas'uuliyaddaasi lagu dhiibay. ilaahay waxaan kaaga baryaynaa inuu kuu fudaydiyo xilkaasi. horeyna waannu ku ogeyn shaqadii wanaagsanayd ee aad xisbiga u soo qabatay iyo firfircoonidii xisbiga aad la soo gashayba waannu kaaga mahadnaqaynaa. wasalaatu wasalaamu calaa ashrafil mursaliin. marka ugu horraysa waxaan hambaliyo iyo bogaadin u dirayaa wasiirka kale Booni. wasiir Booni waa nin active, waa nin firfircoon, waa nin galgal badan, waa nin wax ka bedeli doona beesha uu matalayna. 14 bisha uu madaxweynuhu u cogtay inuu noqdo Cabdinaasir Maxamed Xasan Booni oo aanu ahay anagu saaxiibo aad u dhow in loo magacaabay wasiirka arrimaha dastuurka iyo arrimaha xiriirka golayaasha. waxaan anigu halkan ka qirayaa kulley masabka qof ba joogaya. waxay ilaahay maadiin in loo doortay ninkii munaasib ku ahaa. muhiimadu waxa weeye inuu Cabdinaasir yahay ninkii munaasib ku ahaa. waanu ku hambaleynayaa. waxaan ilaahay ugu baryayaa inuu ka suro insha Allah ta'ala. waxaan ka qayb gali doonaa xafladda xil wareejinta maalinta Arbacada dhici doonta haddii eebaydo. waxaan la saaxiibkii ku soo dhow golaha wasiirada. waxaan rajaynayaa haddii Allah u dareemo inaad noqon doonto nin ummadii uu matalayay gaarsiiyay meeshay doonayeen haddaan ku badhaweynta. madaxweynaha waxaan ugu mahadnayaa oo aad buu mahadsan yahay uu magacaabay wasiirka golayaasha Cabdinaasir. aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa. aad buuna madaxweynuhu mahadsan yahay. wuu asiibay bartii loogu talagalay ayuu dhigay. aad buu mahadsan yahay madaxweynaha qaranku magacaabay Cabdinaasir Booni. aad iyo aad yaradanay dadweynaha magaalada Boorame aan ugu mahad celinaynaa madaxweynaha. waxaan ka hadlayaa halkan uga hambalyeynaya wasiirka cusub ee la soo magacaabay Cabdinaasir Booni. waxaan leeyahay inuu nin xilka ka soo bixi kara, waa nin xilkiisa ka soo bixi kara. aad iyo aad baan u taageersanahay. aad iyo aad yaan ugu hambalyeynaa. waxaan leeyahay madaxweynuhu aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay. kan maantana waa soo dhaweynaynaa. aad iyo aad baan idin salaamaya. madaxweynuhuna ku mahadsan yahay ninka adag ee noo soo magacaabay. waanan la shaqayn doonaa. aad iyo aad baan ninka u hambalyeynaya. waan soo dhaweynaynaa wallaahi. horta ninka wasiirka cusub dhalinyarta Mr. Booni waa nin aad iyo aad ma garanaysaa firfircoon oo hawlkar ah oo xaqabad ma garanaysaa intii uu soo joogayna aan ogeyn siduu hawsha ugu jiray. iminkana aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa. waxaanan leenahay wasiir hambalyo markii hore iyo iminka waanu ku hambalyeynaynaa. waxaanan leenahay xilkaa lagu igmaday ilaahay kugu asturo, ilaahay kugu garab galo. sidii aad awalba u shaqaynaysay si ka fiican inaad ugu shaqayso waan rajaynaynaa insha Allah. gobolka iyo qarankaba insha Allah waan rajaynaynaa. waxaan uga hambalyeynayaa wasiirka cusub ee wasaaradda xiriirka golayaasha oo madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi u soo magacaabay mudane Cabdinaasir Booni. hambalyo. wasiirka loo magacaabay xiriirka golayaasha madaxweynuhu ku mahadsan yahay. isagana aad baan u taageersanay haddaanu nahay dadka reer Awdal. koos waxa weeyaan taageero waxay ku dhaantaa malaha. wax kastaba wax fiican in wanaagga xagga wanaagga diiyaa la eego. isagana waanu ducaynaynaa. xilkaana Allah kugu asturaan leenahay.
wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. wasiirka loo doortay golayaasha waan soo dhaweynayaa marka koowaad reer awdal waan soo dhaweynayaa waxaanan ku soo dhaweynayaa wasiirkan waxqabadkiisa madaxweynaha Soomaaliland oo ku hambalyeynaya magacawga uu magacaabay markaan wasiirka waxaan ku soo dhaweynayaa magaaladiisii oo ku soo dhaweynaa marka wasiir inuu noqdo wax ka bedela dastuurada Soomaaliland dhacdooyinka Soomaaliland oo gobolkan laga dareemo Soomaaliland laga wada dareemo anigu waxaan taageersanahay xilka loo magacaabay cabdinaasir xasan maxamed buuni waa nin adag waa nin Soomaaliland la haysta waa nin raganimo leh waa nin ku dhaxle waa nin cid kastoo waa shaqaa kaga siiyey marka ninkaasi ninkii nool baa ku nooleeyaa ninkan waa nin nool waa nin wax garanaya waa nin siyaasadda fahmaya anu waan jecelahay waan soo dhaweynayaa waa nin dariiqii siyaasadda u haystaa siyaasaddan uu fahansan yahay siyaasadda jajar baa looga dhacaa guryaha loo iibshaa waan taageersanahay buuni waxaan leeyahay soo dhawow wasiir aad baan ku soo dhaweynayaa hambaliyada aan u dirayno wasiir buuni xaqiiqatan wasiir buuni waa nin karti midhan leh oo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee barakaysan ku suntan waxaan leenahay waxa weeyaan wasiirkaasi waxaan leenahay waad u qalantaa inta iyo in ka badanna waxa weey waad u qalantaa wasiir baajeeda waxaad u qalantaa madaxweyne waxaan halkan markaa uga dirayaa hambaliyo aad iyo aad u qurux badan jamhuuriyadda iyo madaxweynaha qaranka mudane Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa Siilici iyo dhammaan wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland marka waxaan leeyahay si gaara iyo si gooniba waxaan leeyahay buuni waad u qalantaa xilka waxa weeyaan inta in ka sareysana waad u qalantaa waayo waxaad ku suntan tahay qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland baad ku suntan tahay qarankani halkii uu baahnaa iyo xilkii aad u baahnaydna waad heshay marka waxa weeyaan dadaalkaaga halka ka sii mari waayo waxa weeyaan nin kastoo dadaala oo nin kasto oo la jecel gashada jamhuuriyadda Soomaaliland xaqiiqatan midhaheega u guranaya marka waxaan leenahay buuni maanta murihii waad guratay waxa weeyaan waanad ku mahadsan tahay halka ay ka sii badanna waa sii waysa hambaliyo baan ku leeyahay wasiir buuni